jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Port Elizabeth ee dalkani Koonfur Afrika ayaa habeennimadii xalay waxa ay qabteen xalfad ay ku soo dhaweynayaan madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka ismaamulka Soomaalida ee dalkaasi Itoobiya. xalfadda oo ay ka soo qayb galeen dowladda hoose ee xaafadda Soomaalida ee degan tahay ee magaalada Port Elizabeth iyo waliba waxgarad ganacsato aqoon-yahano iyo dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan deegaankani ayaa waxa ka hadlay dad kala duwan. ugu horeyntiina waxa hadlay Suldaan Cabdillaahi oo ka mid ah salaadiinta deegaanka Port Elizabeth ee ka soo jeeda dowlad deegaanka. sidoo kale waxa goobta ka hadlay Maxamed Dahabo oo isku duubnaada wadankiisa kasta kaliya waxa la qabay waa hooyanahay madaxweynaha salaamaya inta madaxweynaha Soomaaliya salaamaya wadama aan hadal aan ka fiirin Soomaaliya laga sheego waa hooyanahay si aan ka tagay waxaan uga tagay waa la hadlay wada arkaysan أنا والله تذكر على كذا كذا ولي ما نعرف بس مساوي. إيش وعندنا وحنوطنا نور هربان وحباش عافية أول الله قومينا كله قومية بنا وحنا يقبلنا وكانت تسدحات اليوم من الله ما تحكي تناني ما قرنا. نمعان أحمد علي وقدوميها دليرة Port Elizabeth waxauna ahaa qaban qaabiyaashii xalfadani waxa uuna la hadlay Hon Cable TV waxaana hadaladiisa kamid ahaa madaxweynaha cusub ee la doortay mudane Mustafa Maxamed Cumar marka isbedelkan ayaan anaguna garab ahayn oo garab taagnayn oo muujinayna shucuurtana iyo dareenkanaga marka xafladdu si aad iyo aad qurux badan oo heer sareysan ugu dhacday. Taxkiin Ibrahim Hon Cable TV Koonfur Afrika.